السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن لما صاحبات قيمة بدنا كحنا جنا كسبنا كستو official فضلنا هدية تايمر كول ساسوب وقت جنا سبسكرايب نو سار سو كلا كمبلل كفلا si markasta ku soo gaaraan muuqaalada kala duwan ee halkan aan soo galino haddii aad horan joogtana muuqaalka noo leekare sidoo kalena sii share gare si muuqaal ku gaar saaxiib badan ay noogu soo biiraan marka channelka saaxiibada qiimaha maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadanayna marka la fiiriyo filmo xiiso badan ee marka OTT lagu soo fasaxaya kuwaas oo marka kamid ah filimka lagu magacaabo Agent oo marka hogaamiyay Akhila Kanani iyo sidoo kale filimka marka lagu magacaabo Kushi oo marka hogaamiyay Fijayda Furganda sidoo kale saaxiibada qiimaha soo qaadanayna filmada marka tiyaatarada saaran ugu horeeyay filimka marka lagu magacaabo Jawan oo marka hogaamiyay SRK iyo sidoo kale filimka marka dhankaasi Tamil Wadara ka dhigay kaas oo lagu magacaabo Mark Anthony oo marka hogaamiyay Fishal oo film xiiso badan dhankaasi Tamil hadu marka la saaray sidoo kale ganacsi wanaagsan marka sameynaya iyo sidoo kale filimka marka lagu magacaabo State Master Police hogaamiyalka Anushka Sisi sidoo kale Nafin Police filmahaas ayaa marka ku soo qaadanayna haddii aan marka hore ku bilowno filimka marka lagu magacaabo Agent hogaamiyalka marka la fiiriyo Akhila Kanani sidoo kale maamuutana filimka ku jiro sidoo kale filimka xisaab badan marka la fiiriyo dhankaasi tiyaatarada lagu filimka waxa la saaray 28 Abriil sidoo kale filimka muddo 5 bilood ay filimka la sugayay isagoo filimka dhowr jeer kala duwan filimkan uu baaqday oo hore filimka waxa shaaca loo qaaday bisha July in filimka lagu soo fasaxay OTT-ga balse filimkan ma aysan suurtagelin hada marka la fiiriyo 5 bilood ka bacda filimka waxa shaaca laga qaaday inta barta loo yaqaan marka la fiiriyo Sony Live oo dhankaasi Koonfur Hindiya marka filimada laga daawaday filimka shaaca laga qaaday 29 bisha September ama Jimcada fooda nagu saartay filimkan OTT laga daawanayo taasoo ka dhigantay filimkan marka la fiiriyo waxaan sugnaa filimka marka la fiiriyo uu iskanay oo filimkan 4 maalin ka bacdi ayaa filimka lagu soo fasaxi doonaa OTT-ga sidoo kale filimka marka la fiiriyo qaybta hore marka tiyaatarada laga daawado filimkan oo ka duwanaan doona maadaama marka la fiiriyo waxyaabaha filimkan laga jaro markay guddiga filimada faafar ee filimka la geeyay ayaa filimka lagu soo dari doonaa si filimkan u noqdo sinema daawasho marka uu helay marka la fiiriyo dhankaasi OTT-ga saaxiibada qiimeynta ayaa ka cusub filimka Agent oo 29 marka la fiiriyo September lagu soo fasaxi doono OTT-ga sidoo kale filimka labaad soo qaadanayna waa filimka marka lagu magacaabo Kushi oo hogaamiyalka yihiin Fijayda Furganda iyo sidoo kale Samantha filimkan waxa ognahay soo baxay 1 September ayaa filimka tiyaatarada saaray waxa film xiiso badan marka la isku kala Fijay sidoo kale Samantha sidoo kale filimka marka la fiiriyo tiyaatarada wacdar ayuu ka dhigay maadaama marka la fiiriyo filimka ganacsi 80 karoor oo filimka ka tilaabay hadana filimka waxa noqday filim marka average sidoo kale filimka marka la fiiriyo hit wuxuu ku noqon waayay lacagaha fara badan filimkan ku iibsaday marka la fiiriyo qolyaha jirada qaybiya oo dhankaasi lagu filimkan hadda wuxuu noqday filim marka guuleysto average hadana marka la fiiriyo shirkadda Netflix ayaa filimkan iibsatay oo waxa shaaca ka qaaday filimkan hal bil ka bacdi in filimkan lagu soo fasaxay doono OTT ama 1 October ayaa filimka la daawan doonaa taasoo ka dhigantay marka la fiiriyo todobaadkan laba film xiiso badan daawan doona kuwaasoo kale marka la fiiriyo Agent sidoo kale filimka marka lagu magacaabo Kushi oo dhankaasi marka la fiiriyo lagu laga leeyahay filmadan haddii la soo turjumo saaxiibada qiimaha waxa ka heli doontaa marka la fiiriyo description-ka Telegram-ka yaal halkaas ku dhufta kadibna marka join dhahda wixii ka soo kordhana filmadan halkaas ayaa marka ka heli doontaan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan haddii inta kaga soo tagno filimka marka filmada OTT-ga saaran kamid ah Agent sidoo kale filimka marka lagu magacaabo Kushi oo toddobaadkan marka OTT-ga lagu soo fasaxi doono sidoo kale saaxiibada wax soo qaadanayna filmada tiyaatarada saaran ugu horeeyay filimka marka lagu magacaabo Jawan oo marka hogaamiyay SRK sidoo kale ay ku weynayaan Dabika Badkana sidoo kale Fijay Tubatu ay kaalin filimka ka qaateen filimkan waa film xiiso badan 7 September ay marka tiyaatarada saaran sidoo kale marka la fiiriyo filimka 19 marka masrax saariyay isagoo marka filimka ganacsi waliya marka sameynaya sidoo kale filimka marka la fiiriyo ganacsigiisa ee ku dhawaad 18 filimkan ay 500 karo filimka kaga tilaabay wuxuu noqday filimka sida ugu dhaqsiyaha badan marka la fiiriyo 500 karo kaga tilaaba hore iskoorkaas waxa waa Gardaar 2 oo marka 24 days filimkan uu soo degashay 500 karo ku gaaro balse hadda filimka iskoorkaas waxa jabiyay SRK oo filimkiisa marka la fiiriyo 18 kaliya oo marka filimkan kaga tilaabo 500 karo marka la fiiriyo lacagta Findi oo kaliya halka marka la fiiriyo uu 1000 karo ku gaaro marka 18 days wuxuu noqonayaa filimka afraad oo waxa marka ka horeeyay Bahubali 2 oo marka 10 ku gaaray iyo sidoo kale KGF 2 iyo sidoo kale RRR hadda kaalinta afraad filimka ka soo gaaray marka la fiiriyo filimada sida ugu dhaqsiyaha badan marka 1000 karo ka soo xareeyay hadana filimka marka la fiiriyo ganacsigiisa hadda wuxuu marayaa ku dhawaad 15 karo halka suuqyada caalamka filimkan wax waliya oo marka ka sameeyo isagoo hadda filimkan maraya ku dhawaad 334 karo dollarna marka filimka loo fiiriyo 40 milyan ay filimka kor u dhaafay waxana u badan tahay filimkii Bathana marka soo qaban doono
oo ganacsi ahaan markaa gaara 48 milyan. hubantaana filimkan uu soo qaban doonaa inkastoo marka la fiiriyo still attack September filim marka ay soo baxayaan waxa laga yaabaa filimka marka la fiiriyo tiyaatarada in lagu yareeyo maadaama filimka 3 toddobaad marka tiyaatarada saarnaa waxa laga yaabaa filimka tiyaatarada kooban marka filimka la siiyo balse filimka marka la fiiriyo weekendigiisa marka afraad filimkan waxa laga yaabaa filimkaas si weyn marka isku celiyo oo marka filimkii Bathan marka dhaafo 55 karoor filimkaas gaaray haddana darajadaas marka wax kaga dhiman 40 karoor oo kaliya hubantaan marka la fiiriyo ilaa xataa foodan uu saad filimkan hadii marka filimka ganacsi wanaagsan sameeyo oo soo qaban doona marka la fiiriyo filimka Bathan sidoo kale filimkan wuxuu noqon doonaa filimka marka la fiiriyo luqadda Afindi oo filimkan lacagta ugu badan ka soo xareeya maadaama hadda filimkan uu marayo 510 karoor filimkan hadda waxa la fiiriyaa Emilian Shilka 530 karoor ilaa 540 karoor filimkan inuu gaari doono waana hubantii filimkan waxa uu noqon doonaa filimka ugu lacagta badan marka la fiiriyo gudaha Hindiya oo marka Afindi lagu daawado hore iskoorkaas waxa weeyse marka la fiiriyo Bathan kadibna marka la fiiriyo filimka Gardaar 2 ayaa marka kala wareegay haddana marka la fiiriyo filimka Jawan ayaa marka iskoorkaas qaadanaya saaxiibada qayb inta ka soo qaadanaa filimka Jawan haddana waxa soo qaadanaa filimka marka lagu magacaabo Mark Anthony oo dhankaasi Tamil laga leeyahay filimkan waxa hogaamiyay Fishal sidoo kale filimkan waxa kaalin ka qaadan doona SJ Surya oo marka la fiiriyo talented actor dhankaasi Tamil filimka marka la fiiriyo ganacsi wali ay marka dhankaasi Tamil filimkan ka sameynaya maadaama filimkan 100 karoor ku dhow yahay isagoo marka la fiiriyo 2 toddobaad oo kaliya marka tiyaatarada saaran hadda ganacsigiis marka la fiiriyo guud dibadda hadda wuxuu marayaa ku dhawaad 87 karoor taasoo ka dhiganta filimkan lacagtiisa marka hadda filimkan wax kaga dhiman 100 karoor kaliya 13 karoor toddobaadkii saddexaad filimka markuu guda galo filimkan wuxuu noqonayaa filimka Fishal ugu lacagta badan wuxuu noqon doonaa filimkii ugu horeeyay marka Fishal hogaamiyay 100 karoor gaara iskoorkaas waliya marka Fishal oo filimkiisa gaaray sidoo kale filimka Mark Anthony filimka sheekayis aad ayaa loo amaanaya taasna waxay ka caawisay filimkan lacag waliya marka ka soo xareeyay sidoo kale SJ Surya sidoo kale Fishal xafaalta ka dhexmar doon aad ayaa filimkan loo soo dhaweeyay sidoo kale filimka wax laga yaabaa 4 toddobaad markuu tiyaatarada saarayay marka filimkan OTT loo soo wiciyo sidoo kale filimka kale soo qaadanayna waa filimka marka lagu magacaabo Mr. Mr. Police filimkan waxa hogaamiyalka marka la fiiriyo Anushka Shetty sidoo kale actorka marka lagu magacaabo Naveen Police filimka marka la fiiriyo 2 toddobaad oo kale filimka wuxuu noqday filim marka guuleystay maadaama marka la fiiriyo filimka ganacsigiisa 50 karoor ku dhow yahay haddana filimkan wuxuu marayaa ku dhawaad 47 karoor iyadoo filimka marka hore lagu iibsaday marka la fiiriyo 20 karoor ilaa 50 karoor filimka ganacsigiisa u dhaxeeyay haddana filimka sidaas ayuu ku noqday hit dhameystiran maadaama filimkan lacag yar marka lagu kharash gareeyay sidoo kale marka la fiiriyo gudaha talagu oo kaliya filimkan waxa ka soo xaray lacag marka gaaraysa gross marka filimka 31 karoor filimka gaaray marka la fiiriyo dhulweynaha marka laga leeyahay talagu haddana filimkan wuxuu sharaacday marka 50 karoor filimka sidoo ku gaari lahaa hubantaa marka la fiiriyo toddobaadka saddexaad ee filimka 60 karoor gaari doona waxaana u baahantaa ibraantiisa filimka 65 karoor ilaa 70 karoor inuu filimkan ku istaagi doono saaxiibada qiimaha wada filimanta waxay ka soo kordhay hadii marka OTT-ga lagu soo fasaxay hadii marka filimkan filimada soo qaadanay kamid yihiin Jawan sidoo kale Mark Anthony sidoo kale filimka lagu magacaabo Mr. Police waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga fadlan hadii aad ka heshaan muuqaalka noo leeyahay sidoo kale si share gareeya waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.